noqod wanaagsan markii la daawadayaal waxaa si toos ah u lahaynaysan xarunta dhexe ee TV-ga RTN barnaamijka Arooryo Suban waxaa la soo gaaray qeybihii dhexe ee barnaamijkeena markaan qodobada inoo hara barnaamijkeena aan u gudubno dowladda Mareykanka ayaa waxa ay dalkeeda ka soo musaafurinaysaa muwaadiniin Soomaaliyeed oo dib ay ugu celinaysaa magaalada aan ilaahdii dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. dowladda Mareykanka ayaa dalkeeda ka soo musaafurisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo hore loogu xukumay sababo la xiriira in uu gargaar u fidiyeen ururka argagixisada Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya sida ay ku sheegtay waaxda cadaaladda war-saxaafadeed ay soo saartay. Mahdi Maxamed Xaashi oo 31 jir ah ayaa laga soo saaray la soo saaray amarkiisa musaafurinta xafiiska fulinta magaalada Chicago kadibna waxaa soo qaaday diyaarad ay leedahay ICE Air charter taas oo keentay Soomaaliya waxaana lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya sida warbixinta lagu sheegay saraakiisha laanta socdaalka iyo customka Mareykanka ee loo soo gaabiyo ICE ayaa nin Soomaali ah ka kaxeeyay Khamiistii kaas oo lagu xukumay sanadkii 2016 maxkamadda degmada aan ilaahdii degmo ku taala dalkaasi Mareykanka in ay gargaar u fidiyay ururka argagixisada ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya ayaa lagu yeeray tiri waaxda socdaalka ee dalkaasi Mareykanka laga soo bilaabo April 2008 ilaa August 2012 Xaashi wuxuu ka mid ahaa ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya ee qaar ka mid ah gobolada ku yaala Geeska Afrika sanadkii 2012 waxaa la soo gacan geliyay dowladda Mareykanka si uu la kulmo dacwad oogista federaalka ee bariga degmada New York. Xaashi wuxuu qirtay dambiga ah inuu taageero ururka argagixisada ee Al-Shabaab 29 Janaayo 2016 waxaana lagu xukumay 9 sano oo xarig ah iyo masaafuris in dib loogu celiyo dalkiisii Soomaaliya oo markii hore uu ka yimid. waan arkaysaa dowladda Mareykanka waxa ay masaafurin iyo xukun ku riday muwaadiniin Soomaaliyeed. muwaadiniinta qaar waxaa ka mid ah kuwo u dhamaaday xukunkoodii xabsiyadeed kadibna dib loogu soo celinayo dalka Soomaaliya laakiin inta badan dadka masaafurinta lagu soo celinayo waxaa lagu eedeynayaa in ay taageero dhaqaale ay siin jireen ururka Al-Shabaab. maxaa ku kalifay in muwaadin Soomaaliyeed dalkii uu mangeliyada siiyay kaga soo taageero urur argagixis ah? dabcan waxyaabaha ay Soomaalidu inta badan ay ku dawaqsan yihiin waa Maxamed in qof dad argagixis ah oo dad leynaya in isagoo dal nabad ah jooga oo dadkii ku taakulayo dadkii Soomaalida laayo waa waxyaabaha Maxamed dhibaatada dadka qurbaha haysata. dabcan dadka fikir kale laga dhaliciyayo ay ka mid tahay in dalkoodii ay dadgaalaha haystaan ama waxyaabo noocaas ah laakiin dabcan Soomaali badan oo Yurub iyo Mareykan joogta inta badan way ku dhiiradaan inay fikir ahaan u taageeraan dadkaas xaq jirinta ah ee Al-Shabaab sidoo kalena ay taageero dhaqaale la barbar istaagaan. qayb Maxamed waxa ay ka mid tahay in dadka Soomaalidu aanay fahamsaneyn wacyiga rasmiga ah iyo sidoo kale waxa ay ku joogaan iyo fursadaha ay helayaan. hadda laga yaabaa Xaashi hadii aan si aan la dhaqan celin in uu si toos ah ugu biiray iyaga laftirkooda maadaama dhibaato badan uu la soo kulmay oo iyaga dartoodna uu dhibaato la kulmay 9 sano oo xabsi ayuu soo qaatay Xaashi. sax waa laga yaabaa hadda inuu cadhada xataa iyaga ku biiraba isagoo meelaha laakiin dowladda federaalka Soomaaliya ayaa leeyahay waa loo gacan haddaan la qaban oo loo sameyn dhaqan celin oo aan maskaxdiisa la baanan freshman lagu sameeyo maskaxdiisa aan la baanan oo laga dhaqin waxyaabihii kala duwanaa waa aaminsanaa. waxaan horta Maxamed waa muctaqidaad waa aaminsanaa waay qofku wuxuu aaminsan yahay marka qofku wuxuu aaminsan yahay Maxamed in laga jarano way adag tahay in runta iyo waaqiciga la tuso la dhahooniyo wuxuu sida maahay waa sidaas ay ku wanaagsan laakiin asagoo Mareykanka joogo waxa uu fahmi waayay ama laga dhaqi waayay misleedahay dalka Soomaaliya markii dib lagu soo celiyo ka baqay hadda ninkaas fursad buu helay Maxamed uu si ku dhadaan arko nafahanteeda soo arko fursad badan buu helay fursad uu helay Maxamed waxa weeye in uu iyaga ku biiri karaba sababta 9 sano uu xidhnaa way dhici kartaa Maxamed inuu ku biiro wax ka hortaagan ma jiro laakiin waaqic Soomaaliya ka jira markuu arko Soomaaliya maskaxdiisa in isbedesha laga yaabo maadaama ay dadkii
oo arkayo masaakiinta ahaa oo maxasta ahaa oo laynayo dad la iska qarxinayo markuu arko soorasmadika maskaxdiisa dib habeen badan ayay sameyn doontaa waa haddii ay ka baxeen yani waxyaabihii maskaxdiisa ka dhex ku haddii ka baxeen waaye laakiin haddii maxamed uu sidii yahay wuxuu oranayaa uma haddaa jannada joogtaan